haddii aad isku daydo inaad wax samayso ama aad soo saarto wax cusub waxaad arkaysaa in hortaa dad kale ay sameeyeen. taasina waa xog wanaagsan waayo looma baahna inaad dib u hal abuurto gaari, kombiyuutar, kamarad, diyaarad iyo wixii la mid ah. maxaa yeelay horay ayaaba loo hal abuuray. markaa shaqadaadu way iska dhib yar tahay, keliya waa inaad raadisaa xog kaa caawinaysa guusha aad doonaysa inaad xaqiijiso. magacaygu Axmed Yaasiin, halkanina waa kanaalka Guusha i tus. kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. macluumaad raadin. dhanka kale haddii aad rabto inaad u safarto badda biyaha furan waxaad u baahan tahay inaad hesho jiheeye kugu haga waddada saxda ah ee ku gaadhsiin kara hadafkaaga. sow sidaas ma aha? hannaanka ku dhisan xog raadintu waa hab ku salaysan saadaalin lagu gaadhi karo yool ku dhisan garaad iyo xeer dejisan. sida kale waxaa jira hannaan kale oo loo yaqaano adeegsiga dadka kale aqoontooda. haddii aad isku daydo inaad wax cusub samayso marka hore waa inaad heshaa tusaale aad kaga dayan karto waxa aad rabta inaad samayso. sideedaba guushu meel fog kaama jirto, keliya waxaad u baahan tahay inaad hesho qof toosh kuugu ifiya oo ku tusa sida loo abbaaro waddada guusha. dhaqangeli macluumaadka aad soo raadisay. waxaad u dhaqaaqday waddada guusha markii aad soo heshay xog ku saabsan sidii aad u gaadhi lahayd guul. xogtaas oo ah dhaqangelinta wixii aad soo baadhay. midna ku baraarug, aqoonta aan ficil lahayn wax ay la mid tahay aqoon aan macno lahayn. waxaa kaloo jira dad hela xogta balse dib u dhiga oo la suga wakhtiga ku habboon. markaa ha ku hodmin hadallada taban ee ku odhanaya ma aha wakhtigii ku habboonaa inaad qabato, beri baad qaban. xilliga ugu habboon ee aad dhaqangelin karto waa wakhtigan. isla hadda bilow dhaqangelinta xogta aad soo heshay. ha sugin in deegaanku ku bedelo, laakiin adigu sabab u noqo sidii aad ku bedeli lahayd deegaankaaga adigoo u sii maraya ficiladaada iyo tallaabooyinka aad qaadayso. waxaa kuu habboon in aadan sugin guusha ee isku day inaad adigu raadiso. ugu dambayntii daawade, isku daygu isaga ayaa kaaga muhiimsan sugitaanka. waxaan kaaga tegayaa haddii aad ahayd mid u heelanaa halka ay ka xigta marinka guushu iyo mid u hanqaltaagayay hiigsiga hadafkiisa waad helaysaa hankaaga. hubi halkaad ku socoto.